kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal gebi ahaantiinba halkani waa aayaha janal ku soo dhowaada barnaamijka falaqaynta ciyaaraha oo mar walba aad kala socotaan janalkani haddaad iminka ku cusub tahay fadlan janalkan subscribe inoo saar asxaabtii horey inoola joogan haddaad ka mid tahay oo aad ku mahadsan tahay la joogistaada waxaa si xiise leh u soconaya koobka dhegaweynaha qaaradda Yurub oo aad loo jecel yahay daawashadiisa sidoo kalena dhalinyarada Soomaaliyeed intooda badan ay indhaha la raacayaan aadna ay u kala taageeraan kooxaha iminka ka qaybgalaya iyo kooxihii horey u soo haray sidoo kale wararka iyaga waxaad ku maqli doontaan kooxda kubadda cagta Arsenal maaliyadda xilli ciyaareedka dambe ay ku ciyaari doonto oo si qarsoodi ah lagu faafiyay baraha bulshada ciyaaryahan Kevin De Bruyne oo isaguna qandaraaska u kordhiyay kooxdiisa Manchester City xilli uu ku guda jiro xilli ciyaareed aad u wanaagsan kooxda kubadda cagta Chelsea oo iyadu sii jaranaysa tikidkeedii quarter finalka kadib markii ay ka adkaatay kooxda reer Portuguese ee Porto sidoo kalena Paris Saint-Germain oo iyadu ciil iyo murugo fara badan la dhacaysay ayaa waxay ka adkaatay kooxda Bayern Munchen iyo waxyaabo kale ku saabsan kubadda cagta ayaan idiin soo gudbin doonaa haddii Ilaahay raali ka noqdo intaaynu ku guda jirno barnaamijka iyaga maanta aan ku bilownay horyaalka aadka loogu xiisaha jecel yahay ee Champions League ayaa waxa uu marayaa 8 dhamaadkiisii iyadoona la ciyaaray kulamadii ugu horeeyay ee lugta hore aan ku bilaabay maalintii Talaadada ahayd ayaa waxa wada ciyaaray kooxaha Manchester City iyo Borussia Dortmund ciyaar aad u xiiso badnayd iyadoona labada dhinacba ay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u wanaagsan ciyaartaasi waxa ku adkaatay kooxda Manchester City 2-1 ayay kaga adkaatay dhanka kale ciyaar xiiso lahayd oo si weyn loo wada sugayay natiijadeedana inta badan taageerayaasha qaar ay ka sii hordhacayeen qaarna ay saadaalin kari waayeen kadib markii ay ku wareereen shaxda labadaasi kooxood ay soo bandhigayaan ayaa iyadu kubadda cagta waxay tahay cad iyo madow kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa wajigabax kala kulantay kooxda Real Madrid ciyaar ka tirsaneed sidii dhamaadka Champions League ciyaartaasi ayaa waxay ka dhacday magaalada Madrid waxaana soo martisay kooxda kubadda cagta ee Liverpool labada dhan marka loo fiiriyo line-up-yada xilligaasi ay soo bandhigeen ayaa taageerayaasha kala duwan ee labada dhinacba waxay saadaalinayeen midba midda kale inay ka adkaan karto iyagoo markaa dulduleelo ka eegaya dhanka iyo difaacyada waxaana ay sidoo kale ay niyadda ku hayeen qaarkood in ciyaartaasi barbara ay ku soo dhammaan karto maadaama awoodooda same ay ahayd laakiin ciyaarta ayaa dhinac u dhacday kubadda cagta ayaa waxay tahay cad iyo madow gari laba ninka mooda qosliso 3-1 ayay ciyaartaasina ku soo dhammaatay waxaa iminka dhaleeceen xoogan dusha looga tuurayaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool iyo ciyaaryahaanadeeda qaab ciyaareedkii xumaa ay soo bandhigeen iyadoo weliba qaybta ugu horeysa ee ciyaarta wax fursado ah aysan abuurin iyagoo ciyaaryahanadoodu dhammaanba taam ay u ahaayeen macallin Jurgen Klopp ayaa waxaa iminka soo food saaraysa culays xoogan ciyaarta xigta ee Anfield ka dhici doonta sidoo kalena taageerayaasha kooxda Liverpool ayaa indhaha waxay ku hayaan in garoonkaasi natiijo wax ku ool ay kala imaan karaan balse ciyaar 3-1 ku soo dhamaatay weliba gurigaaga lagugu imaanayo natiijada aad kala kulmi karto ay tahay mid ay iska adag tahay kooxda Real Madrid ayaa waxay ka mid tahay ama ugu sareysa kooxaha Champions League taariikhda weyn ku leh iyagoo 13 koob hore ugu guuleystay sidoo kale baraha bulshada ayaa waxa la isku dhaafsanayay natiijada iyo taariikhda ay sii dhigayso kooxda Real Madrid iyadoona taageerayaal fara badan oo ay kooxda Real Madrid leedahay weliba ee Soomaali qaarkood u badan ayaa baraha bulshada waxay isku dhaafsanayaan ay isku hambalyeynayaan halka qaarkoodna ay kooxda Real Madrid ay u tahay kooxdooda labaad oo madax dejis ay u yimaadaan iyagoo markaa kala taageera kooxaha kala duwan ee horyaalada kale ka dhisan sidoo kale kulan kale xiiso lahaa ayaa waxaa la ciyaaray 7 bisha Abriil oo ahayd maalinta shalata ahayd waxaa fooda iyagu isdaray kooxda Bayern Munchen iyo Paris Saint-Germain kooxda Paris Germany sidaan ognahay waxay qabtay ciil fara badan oo ay doonaysay inay ka adkaato kooxda Bayern Munchen oo ay ka aarsato tartankii finaalkii ee laga qaaday koobka Bayern Munchen 2-3 ayaa looga adkaaday ciyaartaasina waxaa xidig ka noqday ciyaaryahan Mbappe oo isagu guusha gacanta u geliyay kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain haddii aan fiirino kulankaasi marka ugu horeysa Bayern Munchen ayaa garoonkeeda Allianz Arena waxay ku soo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain qaybtii hore ee ciyaarta waxaa lagu kala nastay 2-1 oo ay hoggaanka ku hayso kooxda Paris Saint-Germain daqiiqadii 3aad ee bilowgii hore ee ciyaarta ayaa waxaa Kylian Mbappe uu ka dhigay ciyaarta 1-0 kadib markii baas aad u qurux badnaa uu ka helay ciyaaryahan Neymar Jr
daqiiqadii 28aadna waxa ay kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain u suura gashay mar kale kabtankeeda Marquinhos in uu u dhaliyo goolkii labaad sidoo kalena waxaa mar kale ka caawiyey ciyaaryahan saaxiibkii Neymar waxayna ciyaarta noqotay 2-0 laakiin daqiiqada markay mareysay 37 Bayern Munchen ayaa waxay dhalisay goolka calanka waxa loo yaqaano iyadoona markaa uu goolkaasi u saxiixay ciyaaryahan Moting oo baas wanaagsan ka helay Benjamin Pavard labada qayboodba ee ciyaarta waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed u wanaagsan mar kale Bayern Munchen ayaa waxay isku beday awood xoogan waxayna keentay goolkeedii labaad oo waxay noqotay 2-2 iyadoo goolkaasi u dhaliyay ciyaaryahanka jooga dheer ee rugcadaaga ah Thomas Müller caawimaad oo Kimmich uu ka helay 2-2 ayuu ka dhigay Paris Saint-Germain ayaa waxa ku furmatay daaqadii leerta iyagoo markaa indhaha taagaya waxaa mar kale goolka guusha gacanta u geliyay ciyaaryahan Kylian Mbappe oo waxay sidaasi ku noqotay ciyaarta 2-3 oo ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain weli waxaan ku guda jirnaa wararkii Champions League ee kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa waxay u muuqataa midda ugu cadcad tartankani in ay ku guuleysato iyadoo si hoose u soo xamaaranaysa waxay ka adkaatay kooxda kubadda cagta ee Porto ee dalkaasi ka dhisan Portugiiska 2-0 ayay kaga adkaatay kulankaasi labada gool waxa uu kala dhaliyay ciyaaryahan Mount oo goolkiisa ugu horeeya dhaliyay iyo ciyaaryahanka kale ee Ben Chilwell oo ka mid noqday ciyaaryahanada ugu daayar reer England ee gool ka dhaliya Champions League labada ibarka ay ku soo adkaatay iyagoo waliba gurigooda guri aan ahayn ku soo badisay taa waxay ka dhigan tahay in tigidhkii ay sii jaranayso kooxda Chelsea waxaana laga yaabaa oo taariikhda inteeda badan ay saasaanteedu ay leedahay Chelsea inay kamid tahay kooxaha ugu cadcad ee ku guuleysan kara horyaalka dhigweynaha ee Champions League maaliyadda kooxda kubadda cagta ee Arsenal ay ku ciyaari doonto marka ay garoonkeeda ay joogto xilli ciyaareedka dambe ayaa baraha internetka lagu soo gudbiyay iyadoo qaab qarsoodi loo soo xaday nashqada maaliyadaasi funaanadani ay soo bandhigtay Footy Headline sida caadiga maaliyadani ayaa waxay kooban tahay guduud iyo cadaan iyadoona dhinacaha cadaan uu yahay halka dhaxda qaybaha xabadka iyo horena ay yihiin guduud maaliyadda ayaa waxa ku dhagan calaamada Adidas Emirates ayaa ku qoran sida u jeedaan sidoo kale nashqada ama loogada loo yaqaan kooxda Arsenal calaamadeeda ayaa ku dhagan balse dhanka kale isku dabaridka maaliyadani ayaa shakhsiyaad far badan oo ka taageera kooxda Arsenal waxa ay sheegeen maaliyadani in aad u shabahdo maaliyad ay leedahay kooxda kubadda cagta ee Ajax ka ciyaarta horyaalka Eredivisie ee dalka Netherlands waxayna taageerayaasha maaliyadani kaga falceliyeen in si khaas ah ay ugu eeg tahay Arsenalna ay soo koobiyeysatay maaliyadda isla markaana loogadeeda ay ku duldajisay maaliyadani ayaa waxaa la rajeynayaa in la iibgeeyo bisha July ee sanadkan bartamihiisa aynu ku guda jirno iyadoona baraha Twitter-ka ay isku dhaafsanayeen taageerayaasha oo intooda badan ay leeyihiin maaliyadani waa maaliyad ay leedahay kooxda kubadda cagta ee Ajax taas ayay ku aaneynayaan si aad u jeedaanba sawirada idin muuqda waa kuwa baraha bulshada imika aan ka soo qaaday waata wararka ugu dambeeya aan idin soo gudbinay waxa ay tahay laacibka qatarta ee qadka dhexe u maamula kooxda Manchester City Kevin De Bruyne ayaa heshiis cusub uu kula sii joogayo ilaa ma 2025 qalinka ugu duugay kooxdiisa ee imika hogaanka u haysa horyaalka Premier League ee dalkaasi England ee Manchester City 29 jirkan reer Belgium ayaa heshiis hore ay kula joogay kooxda Sky Blue waxaa kaga harsanaa muddo 2 sanadood haddana waxaa loo sii kordhiyay qandaraas kale oo cusub taasina waxay ku tusaysaa in ciyaaryahankani ay kooxda aad ula dhacsan tahay aan ku sii raaciyay imika da'diisu waa 29 marka qandaraaska kalena loogu daro waxay kaga dhigan tahay in fursadda ugu sareysa ee xirfadiisa kubadda cagta in ciyaaryahankani uu ku soo gabagabeyn doono kooxda kubadda cagta ee Manchester City xidigani xulka qaranka Belgium-ka ka tirsan iyo kooxda Manchester City ayaa kula guuleystay kooxdani Manchester City 2 horyaal oo Premier League iyo 1 FA Cup sidoo kalena 4 koob oo League Cup-ka ayuu kala guuleystay isagoo kaga soo dhaqaaqay kooxda Wolfsburg ee ka dhisan dalkaasi Jarmalka sanadka markii uu ahaa 2015 waxaa xusid mudan in ciyaaryahankani
Kevin De Bruyne uu dhaliyay goolkii furitaanka kooxdiisii kulanka sidee dhamaadka ay la ciyaartay kooxda Borussia Dortmund lugtiisa hore ee sidee dhamaadka Champions League. Waxaa sidoo kale door muhiim ah uu ku lahaa goolkii guusha ee xilli dambe yimid ka uu dhaliyay ciyaaryahan Philip Foden. Horyaaladii kalena sidoodii ay u furan yihiin. Serie A ayaa iyagu xalay la ciyaaray. Inter iyo Sassuolo 2-1 Inter ayaa ku badisay. sidoo kalena natiijo taa la mid ah kooxda kubadda cagta Juventus ayaa Napoli si dirqiya kaga adkaatay. waxaana ciyaartaasi ka dhex muuqday ciyaaryahan Cristiano Ronaldo iyo ciyaaryahan Paul Dybala ayaa labada gool u kala dhaliyay. ciyaarta Juve waxay ahayd mid aad u adag. haddii laga badi lahaana Juventus waxaa qarka u saarnaa macallin Pirlo in uu isaga tagi lahaa kooxdaasi oo laga ceyrin lahaa kooxda kubadda cagta ee Juventus. inta ku kulmi doono warbixino kale oo sportiya waxaan iskaga tegayaa sidaayo nabadgelyo.